بسم الله الرحمن الرحيم أجل بعد السلامية waxaan halkan fariin uga dirayaa maanta nimankan Somaliland ama loo yaqaan Jeeganta hadda dadku si ay u yaqaanaan waxaan aad uga xumahay oo maqaalay oo ayaamahan soo gaadhaysay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo cid walba isugu jirta mudug bari nugaal laascaanood erigaabo buuhoodle qardho baran dhalinyaro nooca ka soo jeeda oo ku xarasan Boorama iyo Hargeysa oo jaamacadeed in la yiri hadalaayo laas bilaahi tullaahi gaalka yahuudka ay ilaahay adduunka toona aan aqoon kama suurtoodo inuu dhaho qof bili aadana oo maangaliyo u joogo oo gurigiisa joogo hal dilo kama suurtoodo sabab adigoo Somaliland oo sheeganaya Soomaalinimo iyo Muslimnimo waxaan Muslimnimo ma dadkan anagu ma dhihi karno waa Muslim waa gaalana ma dhihi karno الحقوق دي ماذا بالآن ما تذكرني يومين تذكرنا أفضل هين أنت مركان كجدبو في سلع على الدواء يو موسى هندراب وحلا هاي كفكر ستيت بقول كنت كأعطي بورم يحركت شو قال له هلا الله يو ملايين كان جرو يقال كعيد داسن اللي باسبور مصود زورني شغال لان أنا يا نوان وح ما هاي دليلتهاس أنا قوم أي سياسي بس واحد هاي قراءة يعني هاي dhalinyaro qiraa'o oo ka soo jeedo beesha Sooli Sanaag iyo Cayn ma fiicna dagaal waxyeelana ma fiicna in qof bili aadana xorriyada laga qaado oo la duleeyo oo sida xayawaanka loo wixooshnimada loo dhaqmaan ma fiicna warnamadu iyo horumarka iyo barwaaqada waxa ay ku jirtaa in nabadgelyo lagu wada noolaado ninkasta gurigiisa nabadgelyo ku joogo موسى waxaan u dirayaa fariin cod gaaban baan leeyahay Muuse ma joogaysid Hargeysa Burcana ma joogaysid hadii nabadgelyada aad ilaalin weydo wallaahi billaahi iyo tullah waxaan qalinka u qaatay oo 20 sano aan u dawwaday buugii qalin in dadka bulshada masiirkooda aanu siino horumar iyo nabadgelyo iyo dadka sidii loo maamul lahaa wallaahi billaahi tullah waxaan qoriga u qaadanayaa hadeer ugu kalifaya Muuse in dadkan loo dhibayo ee gurigiisa loogu imanayo wallaahi inaan ku jahaadno iyo billaahi tullah war qof kastoo dhalinyaro aan waxaan cod dheer codka baan leeyahay war dhulkaaga adaa leh dalkaaga adaa leh bulshadaada adaa wax u bartay bulshadaada xoog ah nin kastoo dhalinyaro ayaan leeyahay cod dheer codka aan ugu dirayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga waan dheereeyay bulshada iyo dhalinyarada ku dhaqan gobolka Sool ama u dhalatay ee jooga qurbaha meel kasta waxaan leeyahay dalkan idinka leh dalkan u tashada dalka iyo dadkan u tashada qof kasta oo ka soo jeedo gobolada waxaan leeyahay dalkaaga u tasho ama dibad joog ama dal joog dadkuna saga dalkooda u tashado wuxuu ah hantida kaliya ee dalku ama deegaanku leeyahay waa dhalinyaro assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh